maalin kasta waxaas laga doodaa qoomuluudka hal la daayaa la leeyahay nin waxa ka raaj 18 sano cunug ka yar gabar hadii la guursaday zina waayo sanbabku halkan ku fadhiya iyo kuwa xalano ku fadhiya maxay isdhaamaan waxa way gabadhaasi 9 jirkii dhiiguna waa ku dhacay inanimadeedana banaanka u ahaayo haddana marka odayaashan maarata tunka weyn oo baarlamaanka noogu jira waxay hadda sheegayaan waa aragtay 18 sano cunug ka yar gabar hadii la guursaday zina waayo sanbabku xanuuno waxaas sharci umadu dejinaayo maarata la isu guba oo la isu layha leeyahay halkan ku fadhiya iyo kuwa xalano ku fadhiya maxay isdhaamaan marka annaguna saasa masaajid ugu jirnaa qiyaama u socnaa tareenkan iska saarana ma ahane boqolaalkaas ma taliyaan wadanka way maalin kasta waxaas laga doodaa qoomuluudka hal la daayaa la leeyahay nin waxa ka raaj gabar 17 jiran ayaa la guurinaa la leeyahay oo ayadii abu ku haay nimankii ayada raacdaysay ayada nimanka dib ordaysa Soomaa marka gabar aan 18 sano gaarin haday ilmo dhasho oo aabaheed nikaaxsho oo reer laga dhigto ninkaasi waa zino ku haysta saasay taagan yihiin sharci dejiyalna waa lagu leeyahay kulligood markaad fiirido videogooda markaad fiirisid hal qof oo diin ku suntan kuma jiro waa shayaadiin la soo dhoobay khayru khalqilaahi yaa ku guursada 9 sano Aisha loo gurigay Aisha miyaa leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam hadda saasay dad isku taagan nabigana waa la arkay oo dhahay qow ka doona waaye marka diin ma hayno aqriskaas iyo midabkaas ma ahane nuxur diineed ma hayno dayib ka soco wamaata canha nabigu waa ka dhintay walaha 18 sano nabigu asoo 9 sano kala qabay markuu dhimanay 18 jir Aisha ahayd asna wuxuu taagan 18 sano ka hor wax laga raadi karo waxaanu cilmiyana waa noo aqriday adoo marka xukun marka gurigi nabi maxamed uu ka nabad gali waayay adiga baarlamaanku oo sharci ku dejinaya